ترساس يرد عيسى يو توين يا عدوي وميلو يو نكسر جده استاق مرك استاق در كر بيح جاتو حاجه سمع ورا كر لبا أفر صدق عقاري شكرا من يوم دهريكو لبا عيري صدح أفر لبا صدح سكتشر هذا بس ديكتور حق هوريش هاسي استاق هذا كلا هاي إيه آجا إنه قبنيبه وحي حلي جاي إنه شغله كهريين مدة إننا جا إسكو معنا هاين مركا إنه أولاد إيو والد كذا هاين إنه معلمين يارده هذا هاين هذا هو النظام ساعتين كل كذا كذا هاين لكن لقد على وقت جاي مشاغلنا شبه الدين عادي جاهز يعني هو اللي بحالكي وخذ قري دبعيه طوال إسكاجمد هو اللي جالس مية حتى الصعاب بس تبدل اللي متشيل نعم بقولي نمر بقتين نسيب سوى حسين إسماعيل ظاهر عنده ويلي تقبل أسمر إني ثلاثة راسي كهربائي فرال كورتال مدح عافمادك قيبته غرغر نفتي هوري او shaqadiisi ku jira buktooyinkii saaka waqtigii daawada la joogo waqtigii daawada qaaniga la jooga marka buktooyin fara badan oo kamid ah ciidanka dowladda wadaniga xoreynta ogaadeynaya waa waqtigii daawada qaadanaya taas waxay muujinaysaa si dowladda wadaniga xoreynta ogaadeynaya u gaadhay isku filaansho dhan kasta ah dhanka caafimaadka dhanka hogaaminta dhanka magaranaysaa wax walba marka waxaan rabay sawir noocaas inaan idinka muujiyo mar rabo faahfaahin badan xoogaal baa tihiin kuwaas daawadiisa oo bixinaya halka ka artaan marka daawasho wacan kuwaas waa daawadii كنين كيري بيبيها ميرك عبد جنو خاسا عبد جن خاسا فعلا قريو سومر مركا سومر مركا ويديني كان قضيه ما بس تنبيه له سوي ويدي الله خير نوع هذا اللي قاعدين يقولون ما شاء الله ركتان ومعدنته عن ودنا ذاك الكوتشين
adduunyo badan oo maray waxaad oon ku arkay ma jiro haadana waxay u gaar tahay ogaadeynaya oo waxyaabaha xayawaanka u gaarka ogaadeynaya haadan la yiraahdo waxaad aragtaan waa noocaad aragtaan adduunka kale ku jirin miigaas kaasi boqorkii weey halkan waxaad ku artaan cudbiyo ka tirsan ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya gaar ahaan qaybta gorgor kuwaas oo isticmaalaya tababarkii la baray qaar ka mid ah halkan waxaad ku aragtaa naftiro ka tirsan ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya gaar ahaan qaybta gorgor naftiruhaas oo huwan calanka ogaadinaya la raadinayo inuu si rasmi ah uga qotonsado gudaha dalka ogaadinaya naftiruhaas oo magaciisa la yiraahdo naftiruha Xasan Dheere kana tirsan ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya gaar ahaan qaybta gorgor sidoo kale waxa halkan ka muuqda qaar ka mid ah bulshooyinka reer ogaadinaya kuwaas oo markasta iyo meel kasta ay joogan xiisaynaya aragtida ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya una diyaar garowsan wax qabadka halganka ogaadinaya halka waxaad ku aragtaan dhufaysyadii axmaarada ee saldhiggii weynaa ee malqaqa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya ay ka furatay ciidamadii sabalaloodka ahaa ee wayaalaha kuwaas oo wacdaro ay u geysteen ciidamada wadaniga xoreynta ogaadinaya kuwaasoo guulal laxaadle ka soo hooyey markay bishii May ahayd 16 bishii shanaad markii taariikhdu ahayd waxaad aragtaan difaacii weynaa ay sameeyeen وكواس أي دفاع هذا ugu tala gashay balkii hore ugu tala gashay inay ka difaacdo magaalada Jigjiga difaaca koobaad ee raaca hore inay ka dhigto laakiin waxa u diiday ciidamada wadaniga xoreynta ogaadinaya yaa u diiday taana sankooda caana ka lisay sandullana kaga kiciyay maalinta taariikhdu ahayd bishii May 16 waad aragtaan daawasho wacan koodaha yaa halkan gali jiray halkaasina waa dhufayskii ama waxa weeyaan waa waardigii ka ahaa halkan waxa wakaas bahal ninkii taliyaha u ahaa jarka aad aragtaan ay ciidanka difaaca halka ku jiray waa ciidan aad kolkii hore loogu tala galay in ayna jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya ay wadnaha u galaan oo inay dhaqdhaqaajin laakiin maanta waxa wada aragtaan iyadoo haawanaysa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadinaya ay dhoolotus ku samayn doonto iyadoo arki doontaan indhihiina aan tusi doona haddii Ilaahay yiraahdo iyagoo wiilasha naftoodayaashii dhoolotus ku samayn doonaan difaacyadii ay ugu tala gashay dawladdan xun ee Soomaaliyeedka ah iyadoo ugu magacdartay kuwa xun ee maleeshiyaadka ee caloosha shaqaystayaasha ah iyo kuwa xun ee laga soo ururiyay Maqale iyo Gondar iyo Oksumba laga soo ururiyay ee beenta loo sheegay hawaawigana ku nool
يوم وحوا وركهين ليجي ودن كقني جاي وقاعدين يا كالين معاه صاغرته لكن أيكون نقطي سندلة يبان أيكون نقطي ثانا وعندي هنا شنا وكانين دوبنا سلقي وينا يجو وينا قبل كجيجة اللي رجل مرققة وكاس وكوفية هودي وكواس ولي سيد رقودي وطلع وكوفية دي ويانا وروح أنا يجي بكم مرة هيك وهذا ركتها حالة ضوضة والما سنتين داوشوا عن الله حق هذا كدر من هذا daawadayaal halkan waxaad ku aragtaan dhufays sidii aan horeba idinku sheegnay dhufayskii malqaqa oo ay deganaayeen ciidamada gumaysiga Itoobiya kuwaas oo ciidamada geesiyiinta jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftooda horayaasha wacadka ku maray inay ciidooda hooyo ka kiciyaan gumaysiga Soomaaliyeedka Itoobiya ee wuxuushta ay burburiyeen waxaanad ka dhex muuqata oo aad indhihiina ku aragtaan ciidankii goobta burburiyay ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftooda horayaashii oo ku labisan دريسكا أي كفرتين ciidamada Soomaaliyeedka gumaysiga Itoobiya iyo waxa dabaqoodiga loo yaqaan ee ku noqon markasta ciidamada Itoobiya waxa sidoo kale idinka dhex muuqda calanka Ogaadeniya ee bilicda iyo quruxda aadka u quruxda iyo qaayaha faraha badan leh oo halka ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftooda horayaal kamidii ay ku kala bixinayaan calanka أنا قواء سنة عام جبت كفرت كبرت قوسنا كانوا قررت ذي الشيكة أي جبت ودين الحرين توقعين أي كفرتي عندما ذي سامرلوت كا رصاصين أي كلام بحثي كل كي هليلي كروين وحين سكي علين كروين وقوا جين قضي على ركتان أي شعب كيوا فرتي وتذكي باللقاء يستي وعلى ركتان قررت ذي ويانها أي هواوي وتلقى شيء يدو بنانا اسكي له waad aragtaan xaaladooda ay ku sugan yihiin ciidamadan wacadka ku maray inay ciidooda hooye sanduulla kaga kiciyaan wayaanaha ugu tala galay waad mahadsantihiin